filimkeena maanta waxay noo hogaaminaysaa saxafiyadan magaceeda la yidhaahdo Jenny waxay iska daawanaysay telefisyoonka ama TV-ga gurigeeda. waxay mar kaliya ku warhelaysaa waa tirada filimka madaxweynaha dalka oo khudbadaynaya kana hadlaya xaaladda waddanka ku sugan yahay. si toos loo arkay markay xiran tahay ciidamaduna ay aad u ixtiraamayaan haweeneydan xaaladan meesha taagan iyadoo waxbay kala socotaa ayaa wixii dhici doona. Jenny goobta waxay u timid sidii ay warbixin uga diyaarin lahayd. hal mar oo kaliya ayay haweeneydii yareeday dad yareeday waa Julia ay istaagtay. Jenny ayaa badbaadisay inantii yareed mar kale. Jenny waa saxaafiyad rug cadaay oo mujecjaa oo qoslin Cabdibuur ayaa uga sheekeynaysaa wixii maanta ka dhacay magaalada iyada oo inantan yarna waa Julia siinaysa talooyin ku saabsan inay raadsato mihnad kale oo shaqo ah intii ay iman lahayd shaqada noocan ah maadaama iyadoo ay hore garabkeega taagan oo dhiirigelinaysa balse Julia waxa ay noqotay xaaladeedu mid aan fariirsan oo jahwareersan. habeenkii waa ay nasteen kadib markii ay maalintii la soo kulmeen xaalad cakiran. Julia habeenkii oo dhan ma seexan iyadoo ku qarwaysa xaaladii ay soo aragtay iyadoo sheegayo waddan ka soo jeedo. Julia xaaladda ayaa ku xun waxaana la weydiinayaa waddanka ay ka timid balse waxaan ku dhashay halkan. waxa kale uu ninkii askariga ahaa uu u tagayaa ninkii Chinese waxaan u weydiinayaa halkii ayaad ka timid balse waxa uu kaga dhufanayaa laabta xabad marka uu yiraahdo China ayaan ka imid. waxaan in iyadu sabab u tahay in saxafiyadoodii weyneed ay dhimato ee Jenny. halkaas aynu filimkeena ku soo faaranaa. waa salaamintan asxaabteeda aad ku jeclay message kasta dunida kaga